tajassasu tajassuska waxa la yiraahdaa inaad raacdo wixii ku soo gaaray aad daba gasho xaqiiqi istiraahdo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadii aad tuhuma idin gasho fala tuhaqqiqu bu nabigu sallallahu alayhi wasallam tuhuma hadii ku gasho ha xaqiiqinin kaga hadalka ku daa haddaad xasad idin galood wax xastaysana xasadku bin aadamka kama marne laakiin ha xad gudbina xasad haduu ku galana ha xad gudb hadday tuhma ku gasho oo war ku soo gaadhana xaqiijintiisa hadaba galina inta kaaga ekaato ila dhaafnaanu warkaas iyo waxaas kuma jiree adiguna iskaga haro waxaan kugu la talin lahaa waxaan inaad faraha ka qaado maxaa ka galay haddaad soo ogaato hebla sidana iyo hebel baa sidana maxay kugu faa'iideynaysaa maxay ku taraysaa waxa kaliya ku taraysaa qalbigaagana waa wasakhaynaysaa carabkaagana waa halaynaysaa walaalka oo loo baahnaa inaad ceebtiisa qarisana ceebtiisa banaanka geynaysa faa'iido kale ku jirta male saas daraadeed buu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wala yaghtab ba'dukum ba'dan qaarkiin qaarka kale yuusan xamanin oo hays xamanina xantu marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala bal cabirka quraanku soo cabira u fiirso xanta Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala waxay ka dhigan tahay walaalka oo meyd ah oo baqtiyay oo meydkiisi aad cunayso soo shay aad u kharaad ma aha shisheeye ma aha waa walaalka muslim ah iimaanku idinka dhaxeeyo aabiyo hooyo idin wada dhaleen haddana hadduu nool yahay waxay ahaan lahayd waa meyd hortaadu yaala hilibkiisi baad googoosanaysaa kolba intaad cad goosato ood karsataad cunaysa soo aad uma kharaad فكرهتموه بالله سبحانه وتعالى واد كهاتين إنك صاد هذا أو كهاتين واد كهاتين ولالك أو ميد هيبكيسو وحي يعني وحي اللي قلنا عكر معه حتى هذا النفط كان عيسو ولالك أو ميد كهريال إن أن كجرب لما تود أتي سكون لما تمو يعني نفط هذا كسين ما يسهيل كان عنه مرنا كسين ميس تاو حلم ابو الله سبحانه وتعالى walaalka inaad xamato oo wax ka sheegto waxay ka dhigantahay meydkiisii oo hilibka goosgoosato oo cunto taas isku mid abu Allah subhanahu wa ta'ala waa arin marka fool xun hadana kaaga darantaha fool xumaatay aad inoogu fudud waxa laga yaabaa warka hada laga akhriyo laga hadlayo xanta iyo carabka laga hadlayo inagoo qaacada ka dareerin ba warka marka la istaajiyaba inaad bilowdaan oo tiraahdo warkuba ka bilowdaba sheeko bal waxaba yarba dadku inta isu yimaadaan inaan cid la xamanin baaba yarba hadana waa la kala dareeyo dumarku waa ku sii ibtilaysan waaba ku sii imtixaanayeen majaalista iyo golayaasha la isugu yimaado iyo hadaan heble iyo gurigeeda la xamanin maba majlisku maba quruxsanaanayaba sooma hadaan heble laga sheekaysanin oo ruux la soo qaadin oo ruux meesha lagu qalanin ma meeshu ma macaanaanaysa waa in heble la soo qaado maxaa hebla idinka galay oo hebla gurigeeda maxaa idinka galay oo hebla ninkeeda maxaa idinka galay oo hebla hawlaheeda maxaa idinka galay maxaa shaqo idinka jira wala yaab waxaba yaraatay ka soo galay waxa gabaydaysa ma jirto bini aadamkan aqli buu ilaahay inaan fikirnaan u baahanahay u fiirsano waxa aan ku tilaabsanayno la isma khasaariyo haddaad aqli leedahay aqligaagu wuxuu ku siinayaa wax faa'iido lahayn ha isgelin waxaad ku tilaabsanaysaa ha noqoto waxda ma aakhira ka faa'iideyso ama adduunyada aad ka faa'iideyso nabigeena sallallahu alayhi wasallam hadith xasan ka sugan oo fasiraya aayada quraanka hadda aan sheegin Abu Bakr Siddiq iyo Umar iyo saxaabo kale nabiga la socday sallallahu alayhi wasallam socotayna safar bay ahayd nin baa jiray marka Abu Bakr iyo Umar u adeegahayo socodka markay ku jireen oo socdaalka leeyahay u shaqeynay kolba waxay u baahan yihiin iyo adeega u hayay ninkii isaga ahaabay marka sheekaysteen Abu Bakr iyo Umar baa ka sheekaystay maxay ku sheegeen waxay yiraahdeen waa nin hurdo badan waa nin hurdo weyn bay dhahanoo yaani waxa way markuu seexdo dhaqso uma kaco intaas inaga xanmiyay hadayna la tahay ya hebel waa hurdo weyn xanmiyay la tahay ما حنين كلامها انت حنين كلامها أبو بكر عمر waxay ku sheekaysteen ninkaas waa hurdamay waxoogaa markii la joogay waxay u baahdeen raashin ay wateen oo inay cunaan ay rabeen ba waxay u baahdeen waxay ku iidantaan ama ay ku koosartaan
ninba dirana waxay yidhahdeen nebiga noogu tago waxaad tidhaahdaan abubakar iyo cumar baana soo diray waxayna rabaan nebigow inaad u soo dhiibto waxay raashinka ku iidaantaan nebigu wuxuu ku yidhi ninkii u yimid ku noqoo waxaad ku tidhaahdaa waabad iidaamateen baja mar horaabad iidaankiiniiyo wixiinii cunteen yaab ayagiina raashinkii oo ingegan oo saliid la-aan ahoo subag la-aan oo caano la-aana baa hor yaalla iidaan bay sugayaan inuu nebigu usoo dhiibo nebiguna wuxuu usoo diray fariin ah waabad iidaamateenba cajiib way soo tageenoo nebiga u yimaadeen sal alay wasalam markaasa yidhaha rasuul ilaahi ow nin baanu kuu soo dirsanay iidaamna waan u baahnayn kadibna waxaad fariin noo soo fartay waad iidaamateen see wax u jiraan markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen buu nebigu sal alay wasalam walaalkiinii aad ku tidhaahdeen uu hurdo wen yahay hilibkiisii baad ku iidaamateen abubakar iyo cumar markaasay yaabeen oo aada u fajaceen oo isku naxeen maxaan samaynaa bay dheheen rasuul ilaahi nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam kac tago oo isagii u tago oo ilaahay dembi dhaafa idiin weydiiyo ma war kalea yaalla marka way soo tageen ninkii u yimaadeen waxay dha warniyo waan ku xamanay raalli ahow oo nacafi ilaahayna dembi dhaaf noo weydiiye meesha marka ilahay baan idinku dhaariye hebel waa hurdo weyn yahay hilibkiisii oo la cunay ay noqoto lagu iidaantay wixii ka sii weyn ka warran waxaynu inagu ku dhex jirno bal ka warrama badweynta aynu dabaalanayna ka warrama soo arrin halisa ma ah waa arrin halis ah waa arrin halis ah waxaad se ogaanaysaan oo inaynu ogaano u baahan waxaanaynu shaqaysanayno soo salaad ma tukataan salaad soo ma tukataan weliba qaar badan waxa laga yaabaa salaadooda inay galab iska tahay soo ma salaad baa tukanaa sadaqaad baynu baxsanaa xajki iyo cumrada iyo waa la tagaa acmaal baa la shaqaystaa waxyaabaha aynu shaqaysanaynana waxaynu ku talagashannahay biidn illaah inaynu maalinkan dhibanno u baxsanno soo ma maalinkaa dhibataan baad u dhiganaysaan soo ma maalinkaa inaad u baxsato qabriga aan lagugu cadaabin qiyaamada lagugu cadaabin ilaahay agtii subxaana wa tacaala janno aada gasho naxariistiisa aada ku hesho sidaasaynu u shaqaysanayna laakiin ka waran haddii shaqadii iyo beertii aada beeratay aada dad kale u beeraysa ka waran dad kale haddabaad u shaqaynaysa ka waran soo tacab khasaar maa camalkaagi iyo shaqadaadii o dhan hal bacaad lagu lisay bay noqonaysa nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalinta qiyaamada saxaabadiisa wuxuu ku yidhi atadruuna ma lmuflis ma garanaysaan ruuxa mufliska la yidhahdo muflis waxa weeyaan waxay yidhaahdeen annaga muflis waxaan u naqaanaa ruuxa caydha ah een waxba haysanin man laa dirhama lahu walaa diinaar dirhamna aan haysanin diinaarna aan haysanin xoolo ka nixin ruuxaasaan annaga muflis dhahnaa annaga mufliska kaasaan u naqaanaa bay dheh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm almuflisu min ummatii mufliska ummadayda waxaa la yidhaahdaa waa ruux maalinta qiyaamada imaanaya wuxuu la yimid mataqaanaa soon fara badan iyo salaad fara badan iyo sadaqo fara badan iyo acmaal fara badan oo buuraha le-eg aada u waaweyn markaasaa waxaa imaanaya dhanka kale dad fara badan oo haysta dad fara badan baa dacwo soo dacweynaya oo ilaahay hortiisa imaanaya subxana wa tacala oo issoo tubayaan mid wuxuu leeyahay rabbigo wuu ixantay mid wuxuu ku dacwoonayaa rabbigo wuu ixantay mid labaad wuxuu ku dacwoonayaa rabbigo maalin buu i dharbaaxay mid kale wuxuu leeyahay rabbigo maalin buu i caayay mid kale wuxuu leeyahay rabbigo xoolahaygiibuu qaatay mid kale wuxuu leeyahay rabbigo waxaasuu igu sameeyey khalqi dhan oo uu khaladaad ka galay oo uu dulmiyey oo af ama adin uu ku dulmiyey baa meesha isa soo tubaya acmaashiisiina halkale yaallaanoo waa weyn waa nin ruux soo shaqaystay wey maalinkaa haddee walaalayaalow cafiya ma jirto maalinkaa hadduu iibsan karo cafiga waa iibsan lahaa laakiin maalinkaasi cafiga lama iibsado allah subxaanahu wa tacaala wuxuu samaynaya marka caadil weeye addoommadani waa sax waad soo dulmiday waadna soo shaqaysatay